badan ee aan sameynay sanadkan wuxuu ka turjumayaa horumarka jaamacaddu ay sameynayso koritaanka jaamacaddu ay sameynayso kamaska kale waxaan sameynay 2012 4 sano kadibna kamaska cusub ee kale caafimaad gaarka oo aan sameynay marka runtii waad ka mahadcelinaa booqasho maanta soo booqateen maanta inay nagala soo qayb galeen furidda kambaska cusub loo sameeyay ardada caafimaadka ee jaamacadda Boosaaso Garowe runtii baahi bay ahayd loo qabay in kuliyadda la balaariyo ay ardadu helaaneen meel ay si wanaagsan wax ugu baran karaan skillski loo baahnaan ku heli karaanin waa meel kambas magaalada dhexdeeda ah oo aan magaalada ka fogeyn ku filan ardada ma garanaysa wax walba ay u baahan yihiin ay ka helayaanin kambaskii kalena waa meeshiisa ku shaqeynaya kuliyadihii kale oo jaamacadda baa ku dhiganaya gudoomiyaha kaaga mahadcelinaynaa in aad ardadina soo booqatay inana dhiirigelisay horumarkaas jaamacadda ay sameynayso runtii farxad weyn bay noo tahay waan idinka mahadcelinaynaa jaamacaddan Boosaaso University-na runtii waa jaamacad wasaaradda waxbarashada lafdhabar u ah jaamacadaha Puntland jaamacadaha kaalinta koowaad kaga jirta arday fara badan sanad walba qaadata laba xarumood bay leeyihiin midna waxay ku taallaa magaalada Boosaaso midna waxay ku taallaa magaalada Tangarowe waxaan rajaynaynaa insha Allah dadkan aad halkan wax ku baraysaan ee boqolaalka ah hadaan ay kumayaalba ahayn inay yihiin mustaqbalkii ummadda tan inay yihiin dadkan iyo dalka kan dadkii aynu u soo saaraynay jiilashaas waxaan ku xisaabtamaynaa insha Allah inay noqdaan jiilalkii dalka kan hoggaankiisa iyo horumarkiisaba qaban lahaa waxbarasho tayo leh waxbarasho caalamka la jaan qaada halka aynu hadda joogno oo caalamku joogo marka gudoomiye adiguna aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida aad waxbarashada noogu taageeraysid waxaan kaaga mahadcelinaynaa xataa inaad nagala qayb qaadato wasaaradda waxbarashada aad kala qayb qaadateen baarlamaanka adigoo metelaya ardaygii kaalinta koowaad galay sanadka kan waxtarkii qiimaha lahaa ee gudoomiyuhu uu ahaa hormuudka uu ardaygaas ay siiyeen maaragtay taakula wax ku oola runtii aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan maanta kala soo qayb galay xarjarkii aan ka xari jiraynay komiska cusub ilaahay idinkeena waxaan rajayn doonaa in arday tayo leh oo dhakhaatiir oo wanaagsan ay soo bixi doonaan mustaqbalka dhow waxaan soo marnay kalaasada oo dhan arday diyaarsan iyo jaamacadda runtii si fiican u qalabaysan horumar baa xagga runtii gaadhay waan ugu hambaleynayaa runtii Boosaaso University aniga laftiga arday baan ahay ka tirsan jaamacadda ilaahay idinkii insha Allah billahi kariim waxaan rajayn doonaa aniga laftigayga inaan sii wado waxbarashada runtii oo aan ka siin lahaado baada Boosaaso University ilaahay insha Allah billahi kariim doonka jaamacadda runtii dadaal bay muujiyeen markii la dhisay qaybtan cusubna waan imi hadda ka hor baan booqasho ku imi iyadoo markaan diyaarinayo iyadoo maanta la furayna waxay tahay sharaf kale inaan ka soo qayb galo runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan soo arday maanta jaamacad diyaarsan runtii qaabaysan dhammaystiran qaybihii iyo waxyaalihii ay kala duwaneed oo dhan baahidii wixii looga baahnaa agab waxbarasho ay yaalaan ardaydii cusbayd ee medicinka baranaysayna ay hadda bilaabeen oo 5 sano ah insha Allah billahi kariim iyo sanad labaad takhasuska iyo tababarka ay sameyn doonaan ilaahay waxaan rajayn doonaa 6 sano kadib inay soo saari doonto si la wadaageen 25 akhtar oo ka hawlgala runtii farxad weyn weeyaan waxaan ku dhiirigelinayaa Boosaaso University dadaalka ay wadaan inay runtii halka ka sii wadaan sidoo kale waxaan bogaadinayaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo runtii door muhiim ah ka qaadatay horumarinta ardayda iyo waxbarashada gudaha runtii oo aad ay muuqato in muddooyinkii u dambeeyay oo waxbarashada gudaha ay sii tayoobayso korna ay socoto waan uga hambaleynayaa wasiirka iyo wasaaradda waxaan rajayn doonaa inay halkaa ka sii wadaan bahda Boosaaso University dhammaantood inay isku duwanaan waxaan la hambaleynayaa